bulshada reer guuraaga ah ee ku nool deegaanka Taaruge oo dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Gaalkacyo ayaa ka cabanaya xaalufin lagu hayo dhirta deegaankaasi taas oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada ku nool deegaankaasi maadaama noloshooda ay ku tiirsan tahay dhirta iyo daaqa waxaana halkaasi saaka tagay ciidanka booliska dawlad goboleedka Galmudug iyo booliska isku dhafka gobolka Mudug kuwaas oo ka duulayay baaqa ka soo yeeray dadka deegaanka waxayna halkaasi ka sameeyeen hawlgal lagu baadigoobayay kooxaha caadaystay jarista dhirta qaar kamid ah waxgaradka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dhibaatada lagu hayo dhirta iyo saameynta ay ku yeelatay nolosha iyagoona dhanka kale ka codsaday laamaha amniga dawlad goboleedka Galmudug inay arrintaasi wax ka qabtaan walaalayaal waxaan ka cabanaynaa dadkaas xaafiyaasha oo geedii sidaas aad arkaysaan u jaray oo sidaa foolsho xun u baabiyay oo degaankii kiciyay baan ka cabanaynaa waa way qurxi bay jareen geed diraacda dheer marka ay kululaato geedaha qaarna doogii baa la daaqaa oo deelko waa geed caleemaad geedna diraacda dheer baa lagu soo baxaa geedka xoolo ku soo baxayeen oo xilligaan oo kale sidaas arkaysaan baa loo baabi'iyay waxaan ka cabanaynaa dawladda sharafta leh iyo ciidamada amniga inay tilaabo ka qaadaan dadkaas waa dad xamlayaal ah oo aan islaan lagu tilmaami karin oo aan khayr lahayn oo deegaanka iyo u naxayn oo dadka aan u naxayn oo abaartii ka foorxun abaartii la soo maray dad ka foorxun geedihii noo soo baxay abaartii goysa maahane saas baa loo gogoyay waxaan ka bixinaynaa ummadda Soomaaliyeed tilaabo aad inay ka qabato amnigu inuu saharsan inuu sunxiyan inay goobaan qolatiimada ay ku jiraan magaalada meesha ay ka tagaan geedka xagga laga soo sheegay maraa weeye iyo kan isku madxul eka kan waa qura waa qoyan yahay qoyaankii baa lagu dilay nafti baa laga gooyay halkaas waa ta ku xabaalan aad arkaysaan geedkiina qoyanna waka waxaan ka cabashada ka bixinayna tilaabana kan laga qaado inaan loo harsan loona hoyan tilaabana laga qaado oo jiida oo dhirta xaalufinaya oo xoolaha hadahaya waa kuwaas oo arkaysaan dhirtii salkiiba inta daboshideen bay markay geedkii dhinac u dhacay bay jarjareen oo isbeeseeyeen waxaan dawladda Soomaaliya iyo adduunweynaha iyo maamul goboleedka ka codsanayna dadka dhagar qabayaasha in la soo qabto oo la raadiyo anaguna barbarkeeda shacab hadaan nahay waa ka raadinayna taliya ku-xigeenka ciidanka booliska xasilinta gobolka Mudug Cali Diin Cawaale oo la hadlay warbaahinta howlgalka kadib ayaa sheegay in ciidamada amniga ay tallaabo ka qaadi doonaan cidii lagu arko iyadoo jaraysa dhirta halkan sida aad u jeedeenba waxaynu u nimid howlgal aan ku baadi raadinayno dadka arxamlayaasha ee sidaas aad arkayseen dhirta u galay ee mataqaana dunyadii iyo dadkii iyo dalkii iyo deegaankii intaba waxyeelada weyn u geysanaya kuwaas oo aan lagu tilmaami karin dad muwaadiniin ah waayo bini'aadamku waxa uu ku nool yahay waxa weeye waa xoolaha xooluhuna waxa ay ku nool yihiin waa dhirtu waxa weeye manaaficaad badan ayay leedahay qoyaanka lagu daaqaa qalaylka mataqaana lagu shitaa waa la dugsadaa waa la harsadaa dhowr nooc ayaa loo isticmaalaa sidaa darteed waxay go'aansadeen waa ay ka daran yihiin dadka laynaya waa ay ka kisbadan yihiin amni ahaan waxaan codsanaynaa annaguna waan dabagelaynaa waanu soo qabanaynaa waa raadinaynaa dadka deegaankana waxaan ka codsanaynaa gacan inay nagu siiyaan arrintaa insha Allah ciddii lagu soo qabto waxa weeye wixii sharciga ay ku mutaysato ayay helaysaa waxaana la horgeyn doonaa sharciga haddii alla yiraahdo Saadaq Saciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo